shantii sano u dambeeyay waxay shirkadda Apple soo saartay alaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Apple Watch. saacadii ugu horeysay ee shirkaddu ay soo saarto waxa lagu dhawaaqay waqtigu markuu ahaa 2014 September waxaana ay suuqa soo gashay 2015 horaantiisii. haddaynu eegno siyaabaha ay u shaqeyso saacadani, markood waxay u baahan tahay in lagu xidho moobil kale amba shay kale oo Apple ah, sida tusaale inaad ku xiri karaysid iPad iyo iPhone oo kale. haddaba halkan waxaan ku haynaa maanta Apple Watch Series 3 taasoo eegi doono nooca ay u shaqeyso. astaamaha ay leedahay waxa ka mid ah inaad ka jawaabi karaysid callska, sidoo kale waxaad ka heli karaysaa message-yada adigoo kana diri karaya message-kaad u baahan tahay. sidoo kale waxay leedahay inaad ku isticmaali karaysid calculator adigoo adeegsanaya saacadan Apple Watch. waxyaabaha kale ay leedahay waxa ka mid ah inaad saacadada ka dhex arki karaysid ama ka dhex daawan karaysid sawirada kugu jira iPhone-kaaga. sidoo kale waxyaabaha ay leedahayna waxa ku jira inaad toosh ahaan u isticmaali karaysid adoo shidanaya flashta ay leedahay saacadadu. sidoo kale saacadan waa water resistant oo haddii aad 50 mitir biyo hoos u gelisid kaama gelayaan biyuhu. waxyaabaha ugu muhiimsan ay leedahay saacadan waxa ka mid ah inaad la socon karaysid xaaladda caafimaad, sida inaad ogaan karaysid garaaca wadnaha iyo sidoo kale intaad exercise samaysay ay kula socodsiin karaysaa. haddaba waxaan eegi doonaa saacadda cusub ee Series 5 featureska cusub ee soo kordhisay. waxaa ka mid ah featureska ugu muhiimsan inay tahay on display screen. taasoo sheegaysa in screen-keedani uu si automatically mar walba u shidan yahay halkii hore aanay lahayn. feature-ka labaad ee ugu muhiimsan ee la oran karaysa caafimaad ahaan oo kale waa featureska aadka muhiimka u ah. waxaa ka mid ah in ay leedahay ECG wax loo yaqaano. ECG-gu wuxuu kuu sheegayaa inuu ku siiyo xogta wadnaha ku saabsan oo dhan iyadoo aad adeegsanaysid smartwatch-kaaga Series 5. haddaba iminka waxaa noo diyaar ah saacadan loo yaqaano Series 3 taas oo aad ka heli doontid xafiisyadeena ama sidoo kale aad ka soo dalban karaysid website-ka muraas.com. haddii aad u baahatid Series 5 iyo Series-yada kale ee shirkaddu soo saarto, waxaa si toos ah dalab ahaan kugu keenaysa shirkadda Muraas.